Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Sanadkan markuu ahaa 1953 magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, maalin iyadoo looga dabaaldegayo bisha Mawliidka, sidii caadadu u ahayd sanad waliba waxay ridayeen rasaas ay cirka u ridayaan si aysan cidna dhibaato ugu soo gaarin. Hase yeeshee, mid ka mid a rasaastii ayaa waxay haleeshay gabar ka dhalatay reer Masiixiyad ah oo ka dhoweyd agagaarka goobtaas, waxayna rasaastii uga dhacday madaxa. Gabadhii oo dhaawaca ayaa loola cararay isbitaalka weyn ee magaalada Beirut, balse dhaqaatiirta ayaa sheegay in gabadhan aysan waxba ka qaban karin. Ehelkii gabadha ayaana ula sii carareen isbitaal kale oo ku yaala magaalada oo ay maamulaan dhaqaatiir Mareykan ah. Dhaqaatiirtii waxay bilaabeen inay baaraan gabadha hooyadeed oo ahayd Masiixiya ayaa inta lagu guda jiray la tacaalida gabadheedii waxay ku jirtay oohin iyo murugo, waxayna tiri, ku aabay Maxamedow sallallahu calayhi wasallam, ishayda waxay la guraysaa tiiraanyo oo kaalay markhaati ka noqo. Kuwa gabadheydii sidaan yeelay waa ummadaada iyagoo u dabaaldegaya dhalashadaada. Ku aabay rasuulkii muslimiintow ma ii garnaqi kartaa? Hooyadii oo ku hadaaqaysa ereyadaas waxaa u soo baxeen dhaqaatiirtii la tacaalaysay gabadheedii, waxayna ku dhaheen waxba kama qaban karno gabadhaada, waxayna kaloo u sheegeen in saacad kadib ay dhimanayso. Hooyadii oo murugaysan ayaa soo gashay qolka gabadheedii ku jirtay, waxayna la kulantay gabadheedii oo ku qaylinaysa, hooyo hooyo albaabka xir. Hooyadii oo yaaban oo hadalka gaagaabinaysa ayaa albaabkii xirtay. Hooyadii ayaana waxay ku dhahday gabadheedii, hooyo maxaa dhacay oo aad aragtay? Gabadhii ayaana tiri, hooyo waxaa ii yimiday Nebi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, gacantiisa ayuuna madaxa iiga salaaxay, kadibna waan caafimaaday. Hooyadii ayaana ku tiri gabadheedii oo hadda aawaday? Gabadhii ayaana ku tiri, waa kaas iridda kasii baxaya. Ugu dambeyntiina hooyadii iyo gabadheedii meesha ayay ku islaameen. Waxaan rajeynayaa inaad muuqaalkan ka faa'iiday. Haddii uu ku anfacay, like saar, lana wadaag asxaabtaada, fikirkaagana noogu reeb qaybta commentiga.